waxa wali marbanbarka ka dambeysay soo tareyso taageeraha ay u muujinayaan madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele jaaliyadaha ku dhaqan gobolka Salil iyadoo maanta ay ka dhacday xaflad balaaran oo lagu taageerayo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele magaalada Looyacdo ee ku taala xuduudda u dhaxaysa wadanka Djibouti iyo Somaliland xafladani lagu qabtay magaalada Looyacdo ee lagu taageerayo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele ayaa waxa ka soo qayb galay gudoomiyaha magaalada Looyacdo Saciid Cabdiraxmaan Cilmi iyo sidoo kale qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Saylac ee magaalada Looyacdo dhalinyar haween wax garad iyagoona halkaas ku soo bandhigay ciyaaraha kala duwan ee hidiya dhaqanka isla markaasina hadalka isku daba maray ayaa waxa uu hadalkoogan iskugu soo biyashubanayay taageeraha ay u muujinayaan madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele iyagoona sheegay inuu wax badan isla garab taagay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele dadka ku dhaqan magaalada Looyacdo isla markaasina ay taageero mug iyo miisaan leh u muujinayaan madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele waxa iyaduna halkaas buraanbur ay ku amaanaysa madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele ka soo jeedisay mid ka mid ah haweenweynaha ku dhaqan magaalada Looyacdo talada noo haya toosan baanu nahay allow madaxweynihiyo maamuladaadke wuxuu maamkiinu doonaya mid ku helaa Soomaaliland ha noolaato ha israacdo Cumar Geele ha noolaado dawladaha la adkeeyo السلام عليكم ورحمة الله halka waxaan ka salaamayaa dadweynahan xafladan qaaliga ah ee isugu yimiday waxa weeyaan dadweynahan waxaan ka kooban odayaasha dumarka waxaan kula dhalinyarada caruurta dhammaan waxaan isku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu Ismaaciil Cumar Geele waxaan leenahay ha noolaado dawladda Djibouti ha noolaato waxa weey Djibouti waxa weey waa wadan aynu jaarnahay waa wadan waxa weey maxaan ku raadnaa aynu walaalanahay waa dad Soomaaliyeed waxa weey maxaan ku raadnaa waxa sababtoo ah waxyaalo fara badan oo maxaan ku raadnaa horumarka Djibouti ka socda inaguna waxaynu ka faa'iideynaa waxyaalo aad u fara badan iminka waxa weey maxaan ku raadnaa markaan leena wadadan iminka Saylac isku xidhaso iyo maxaan ku raadnaa Looyacdo waxa weey wax laga dhisay halka Djibouti laga dhisaya dekada Saylac wax laga dhisay Djibouti war waxaynu leenahay horumarka Djibouti ka socda inagana wayna soo gaar marka waxaynu taageeranaa xusbiga xukuumadda Jamhuuriyadda Djibouti waxaan leenahay ha noolaado dhammaan waxaan leenahay ku horjee ha noolaadaan leenahay joognaa Ismaaciil Cumar Geele magaciisu ha jiro ha noolaado Ismaaciil Cumar Geele inta ma dhaco yonje waxa weeyaan garabkii Somaliland Ismaaciil Cumar Geele dawladda jaarkeena jaaliyada معاهدين سومالان مركا waxaan doonaynaa maanta inaanu taageerno Ismaaciil Cumar Geele maxaad ka qabtiin gabagabadii xafladda ayaa waxa isagoo halkaas ka hadlay gudoomiyaha jaaliyada magaalada Looyacdo Idris Caydiid Maal wax qabadka kaga yimaada dhinaca wadanka Djibouti isla markaasina sheegay in ay taageero mug iyo miisaan leh ay u muujinayaan madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele ahla taageerayaan madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geele wal inaga oo muujinayna walaalnimadeena iyo haloolaado walaalayaal waad aragtaan madaxweynaha dalkiisa waxa uu qabta shacbigiisuna uu jecel yahay waad aragtaan maanta duruufaha ka jira wadamada jaarkeena waad aragtaa marka hadaynu nahay jaaliyada Djibouti ee degan Somaliland waxaanu maanta sharaf inoo ah inaga codkeena ugu deeqayna madaxweynaheena Ismaaciil Cumar Geele ha noolaado hajiro cid kale ku toorsan karno aba aan ku maxay ahayn lagu matali karaa ma jiro macaaridku waligiiba aad hadlo nin aqal dhisi kara aba meel mooska moosi kara kuma jiro barnaamij ay loo keenana ma jiro war wadada weeyaan halka mara hasheegi baan kuri madaxweyne shaqaystay waa madaxweyne dadkiisa iyo dadkiisa way umadiisa ma jeceshahay waa madaxweyne caalamka oo dhan laga jecel yahay walaalayaal qofka horumarkiisa marka aad aragto iyo waxa uu qabanayo waa u qushuuci walaalo waad ku raacay iyagu ka soo qayb galay xafladani lagu taageerayo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele oo iyagu ka hadlay wax qabadka uu ka geystay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele dhammaan
gobolka Salal iyo degmooyinka uu ka kooban yahay waxqabadka si muuqda uu ka qabtay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele degmada Saylac ayaa noqonaysa dhismaha dariiqa isku xidhaya wadanka Djibouti iyo Saylac iyo sidoo kale dhismaha dikada degmada Saylac iyo gargaarida dadka tabaaleysan ee ku dhaqan degmada Saylac sidoo kalena waxa ay soo taraya taageerida ay muujinayaan madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele dadka ku dhaqan gobolka Salal waa Cali Axmed Diiriye Cali Dhagadalool TV-ga caalamiga Star TV magaalada Loo Yacdo